بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كان يتعانى اللغة HTML5 عشر كان waxaan ku baran doonaa HTML format waa maxay formatinku qoraalkaaga aad wax badan ka bedeshid qaabab badan oo ka bedeshid ayaa formatting ku tilmaamaysa marka waxa lagu leeyahay haddii aad isticmaashid word processor Microsoft Word hadda isticmaashid waxaad familiar ku tahay oo aad u taqaanaa baa la yiri sida qoraalkaaga aad uga dhigaysid bold mid burburan mid jiif oo itaalaysa iyo mid underline ah marka kuwaas waa saddex qaab oo ka mid ah 10 qaab oo furta wax looga bedelo HTML5 marka tusaalahan b-daas oo kale waxay ku sheegaysaa bold italics kana aydaas waa italics for jiifta underline waa u way ku sheegaysaa marka HTML kan waa word sawir laga soo qaaday word HTML kuna sidaas oo kale ayuu leeyahay formatting haddaynu eegno formatting maxaa ka mid ah qoraal la dhigay bold oo burburan marka bidix u taagan aydaas waxa taagan tahay qoraal la jiifiyay u-da waxa taagan tahay qoraal underline laga dhigay sidoo kale m waxa taagan tahay qoraal emphasized ah waxa laga yaabaa in ay iyo emphasized isku mid ka noqdaan laakiin waxa ku kala duwan yihiin isku qaab ay uga soo baxayaan page-ka laakiin waxa ku kala duwan yihiin logic ahaan ama macno ahaan u kala duwan yihiin small text ay tan sheegaysaa strong qoraal farweyn laga dhigay del waa deleted text qoraal dhexda xariiq laga mariyay inserted text ay sheegaysaa qoraal sida keyboard oo kale loo soo geliyay marked qoraal la calaamadiyo xariiq kale laga mariyay calaamad highlight ah waxay sheegaysaa tan oo kale waxa la dhaho subscript text sida oxygen oo kale marka qoraysid xageeda hoose tuuga ka raacinaysid tan waa power tuuga oo kale marka qoraysid x power 2 oo kale waxa la superscript text kadibna aynu qaybta salooyinkooda ka mid ah waa kan oo kale b oo qoraysa paragraph of qoraysa waxa dhexgelinaysaa tag la dhaho b kadibna waa ku xiraysaa qoraal la madoobay kan oo kale waa qoraal la jiifiyay oo italics ka dhigaysa sidoo kale qoraal hoosta laga xariiqay oo underline marka sidaas oo mid walba loo sameeyaa inta kana tijaabin karnaa marka haddaynu tusaalahooda eegno waxaan soo keenaynaa halkan ayuu noogu joogay kadibna halkan waxaan ku keenaynaa oo kale sublime text editor-keeni waxaan samaysanaa new file waxaan u bixinaynaa formatting text formatting.html magacaadna tahay u bixin kartaa kadibna waxaan soo koobi garaysanaa intan ayaan soo koobi garaysanaa bog hore ayaan ka soo koobi garaysanaa qoraalka inta weyn noqonaa sida loo qoro halka dadna waxaa ku dari kartaa calaamada waxaan u bixinaynaa xaggana title waxaan uga dhigaynaa text format ayaan uga dhigaynaa waxaan sameynaa marka koowaad paragraph ayaan sameynaa paragraph haddaad doontid paragraph aan sameynaa laakiin waad sameyn kartaa iyana sidoo kale marka waxaan dhahaynaa kani waa bold text far la madoobiyey haddaynu safe dhahno haddaysan aan sida soo fikirnaa safe as trade aad geysid desktop inoo yaalay waxaanu geynaa barashada folderkeeni halka ayaad ku safe karnaysaa waliba .html halka ilaawina ku dirtid waayo hadda extension kuu wataa .html kuu wataa haddaynu eegno oo aynu xaggan dhahno ama right click siino aynu ka furno Google Chrome kan waa bold text laakiin kuwa muuqdo fartiina madoobaatay laakiin haddaynu halkan kaga darno tag la b waa nested tags waa tag ku dhex jira kadibna aynu ku xirno bold aynu ku xirno aynu save dhahno ama control s oo aynu xagga nimaano refresh karayno waxaan arkaysaa qoraalka inuu mid burburan yahay marka sidaas ayaa usii wadaysaa intaynu usoo koobi garee waxaan dhahaynaa kani waa meesha b-daada ay ka dhigaysaa kani waxaan dhahaysaa waa underline text xaggana u baad ka dhigaysaa sidaas ayaa usii wadaysaa kan waxaad ka dhigaysaa intoon oo kale kani waa waxaad dhahaysaa underline text kani waa emphasized emfa loo soo gaabiyey waxaa loo m ayaa loo soo gaabiyaa kana m ayaad ku xiraysaa kan waxaad dhahaysaa waa small text kana waa small text xaggana waxaad ku xiraysaa small mid walba midkiisa inaad ku xidhiidhahay ilaawin waa sii wadaysaa waxaan gelinaynaa oo kale waxa la dhaho
meesha ku bigiray intaan saddexda meesha ku bigiray kan article waxaan dhahnaa strong kan waxaa dhahaysaa doontid waa del waa deleted text xaggan waxaa dhahaysaa waa deleted text kan waxaa dhahaysaa waa marker text tusaale ahaan kan oo kale waxaa dhahaysaa waa sub kana waa sub waxaad isku xidhaysaa tan oo kale waxaa ku qoraysaa baa qoraysaa kabacdina xagga waxaad ka daraysaa 02 marka u sajiidna oo kale markaad sameynaysid tanna waxaad sameynaysaa tan oo kale ayaad ka dhigaysaa superscript ayaad ka dhigaysaa sub xaggan sub ayaad ku xidhaysaa markaad doonaysa ma kale eegaas power 2 oo kale save ayaan leenahay ama control s ama save ayaan leenahay kabacdina basoo eeg waa kani waa bold kani waa italic text kani waa underlined kani waa emphasized marka labadan waxaad aragtaa inay isku mid yihiin laakiin markaad hoosta koodhka eegtid logic ahaan ayay kala duwan yihiin kani waa small text kani waa strong text kani waa deleted text kani waa highlighted text kan maarta waa sub string ayaan ku daray kana waa super string subscripted way so haddii intan oo kale deleted ayaad ka dhigi kartaa small ina qoraalkaas intaas small noqoto deleted ka haddaynu eegno qoraalkan la delete gareeyay intaa yar aragtay inay small tahay ama haddii intaa yar mark ka dhigaysaa oo wax ka dhigaysaa mark ayaad ka dhigaysaa kabacdina intaa yar ayaa mark noqotay calaamadii هذه هذه ما سنتين أنا يا عشر كلمة